الله الرحمن الرحيم. عاوة إيو ستوكهولم سويدن إيو هذا الشيء اللي نشرف كله يهرف لنا هواك كويري هاي لكيس waxaa aniga ii sharafa kulliba Soomaalida wax badan baa ku dhacay wax badan baa inagu dhacay wax badan oo ina kala daadiyay dad ahaan damiir ahaan dad diba ahaan ina kala daadiyay dadka Soomaaliya ku hadla lahay ayaa inagu dhacay tusbax go'ay bay noqdeen dareen ahaan bay tusbax go'ay noqdeen dadnimo ahaan bay tusbax go'ay noqdeen dadka Soomaaliyeed waxay gaadheen inaan isa salaami karin isu iman karin madal sidoo oo kale isu iman karin intay isu yimaadaan wada sheekaysan karin wax badan oo dawlad ka dhacaya carabta de waxa wada sheekaysta ka cad joogay kaliya joogta wax way isu yimaadaan iyagoo dawladda kala bay isu yimaadaan xitaa oo ay ka sheekaystaan wax u dhaxeeya haddii dawladda kala oo caalamka kala sito oo jabcada qurba kala xisbiyo malkiga jiro ay cadal iyo daraabulista galbeed ay wada hadlaan way ka wada hadlaan marba Israa'iil Sharon iyo ay wada hadlaan ninka Falastiin la uu madaxweynaha ay wada hadlaan oo yala sheekaystaan oo ka yala sheekaystaan wax yar oo dara marba Ruushka iyo Mareykanka wada hadlaan waxaase maanta la yaab leh waxa aad la yaab leh ilaa jijiga Hargeysa la hadlayo taariikhii kala go'ay jijiga Hargeysa lama hadasho Hargeysa Boosaaso lama hadasho Boosaaso Jabuuti lama hadasho taariikh waayigi oo dhan go'ay damiirta isku xanaashiyo la baqo waxaana ka dhaxay dhaqan iyo dadib yaani wax ka soo isku khilaafaan waxay caawa halka isku ka dhaxaya waxay kala soo kari laayihiin waxa isku khilaafsantiina isku khilaafsanaan اللي تدخل بالعالم ده ما هو ضبله طلع بعرك بالعالم كوس خلافه وحنا هو اسكو خلافه سياسه هو اسكو خلافه مشاكل كانوا اسكو خلافه على ما يكلا شيغتا وحاسو لا بارك لو ربايو لو ربايو خوف ولا بس عد ولا بس يقول دنتيدا aragtay inay jirta laakiin se waxa jirta waxa dalad bidaya waxay isku af bayna bidaya af kala aawaliyeen waxayna bidaysa diin bayna bidaysa waxay bidayay qoladii halka joogta inaad tihiin minority Soomaali la yiraahdo oo ku nool dalad rabiya oo aan idin kala aqoon jijigu ka yimi iyo balbalu ka yimi aan idin kala aqoon ayaa wada hoos joogta oo maslaxad baad ka dhaxaysa oo ubadkiiba iyo daddiba wax badan baa isu keenada hadda wax kale oo ka tashataa galan weydaan ayihiina halkan iyo dadka waxa halkan idinka dhaxeeyay idinka iyo Sweden dawladda Sweden iyo mashaakilkii la idin wada haysta wax kale oo idin bilaadiyo taas ay idinka dibadaysa way si kaay si xigtaan qoladii halka wada joogta anagu way si kaay si xigtaan qoladii ka timid dalkii way si kaay si xigtaan oo mashaakilada idin gaar baa jira وبعد يروح كوبان أو علب بدايلو مساكينه دل بقولك كيبيو قال بين جبوت كيباديلو قال إثيوبيا كيباديلو قال صومالي أياتي أو خلنا قرآن هذا شوتها وسيدي ولا عرفته مرة هلا جوا ما عربو إلى وحكينا واحد كيدخل والواحد كيدخل سيلا كواضح واحد كله بيسوي وحا على قدر كيلا ما حد قال يدل كل واحد رجبات شو قدي دل كان رجبات شو كله ما له بينه رجبا أولو بينه ولا بينه واحد هيسبتها رجب مركان أحجوبه أيا بينه ولا ما هيسبتها halka waxa jooga oo aan waxba idin ka shaqeeyo tabarahay baa isku dilaysa maalin markaas waxa ku ilaawaysa wixii halkan idinku bideynayay isu kiilbideynay waxa in si walaaga idin maliki khilaafaadkii lisbaxa wal waxa doonto bil aadamku ayay tahay dabiicadiisa inuu isku khilaafo bil aadam meel wada barana baarak idin maliki meel wada bara siyaasadda isku khilaafa sala isku khilaaf لكن سيدي لو سيل واحد كل ذي ستي بديتشلي يعني هالكان كهنا يا خلعس يهجروا خلعس وين يجروا وهذيك
arrinka halkaa ka socda midkiiba siyaasadda meel ka taagan yahay xaqna u leedihiin ha qasbin qofkani xaq buu leeyahay inuu kaa duwanaado qof walba idinka xaq horta waxaad u ogolaataa xaqa uu leeyahay inuu kaa duwanaado hadduu u arkayo waxa dalkii yaala si adiguna si aad u arkayso horta dee xaq baa u kala leedihiin horta nin walba xaqa haysa siiya kow inaa basaasaa taa u aragtaa haana taasaan u arkaaya maxaa inoo dara Stockholm jooga maxay noo dara laakiin haddaad sugto inaad aragtida Soomaaliya dhulka Soomaaliya kala mid noqdo weligeed beeshin meeliti weligeed beeshin meesan kana si buu arkaa nasibaad u arkaa marka waxa laga yaabaa inay tiirayaan idinka dhaxlo aawo siyaasaddu ma bixin wax loo xasaasay sharafa aawo dhaqan ma lahayn waxaan ay dhaqankii Soomaaliyeed baan matalaya waxa idin mideeyaa وساعدها يلا فالتنا يلا واحد البداية اللي هو نصيب تاسع على جماعة يا إلى ما واحد البداية إلى نقل كذي أفكاري كهذا وساعدها يلا مجرد ما بحسكو خلافتي عاوي السوية اللي بعده واحد له هالشيء كله أو وده ضريرين له أو أفكار صومالي ده ينقل كذا أو أي وضرير أنت هذا هو الرأي كنيته أو يعني والله يا أبا إلى وحنا اللي كنت عليه إلى حبكت يقول رئيسي ذي لها تدرك كلا الكون تشوجه حبكت يقول رئيسي بلا دليل لك هو تشري سنة هاي ذي كذا كذا وكنت عليه وبروح يا أبا كلا لو سيقول تانو دليل وهكذا لكن ساعة يربينه بدأ إسلام الله ساعة يربينه بدأ إسلام الله تيجوا بكتر بيسو وأنكم بهذا وحي لقد حيكم بالإسلام الله وقال يوه لقد حيكم بالإسلام الله أنكم بالإسلام إلا قول سياسة دينو كلا جاتها هذا أقول وحكى الله يا عاود قالوا ما هذا الكلام يقول هذا الكلام وهو عبر الضبع إلى من الكيك هاي قاعدة ليه بسم الله الرحمن الرحيم وأيه سجان كيو كله أرجع السجان وأنا أقول لك هذا وحلي ودي كلام واحد سجان تاهم هدي عدو واحد ودي لي سنة وواحد سجان تاهم بكال كذا واحد كله فرق سنتين هل كانوا بالي بلو سياسي دي بمية واحد السجان هذي دي وواحد يقول لك هذا واتهاي سجان أرجع السجان مصطلح يعني تكنيكال تيرم بالينا أرجع السجان وأري معناها مركب أولى معناها هي لترجع أم بقول معناها هي الأدب وحصاب حي لبيه سجاشكي لبيه تضماتكي أيها جود جي أف صومالجو وحي أفغان اللغوية قالوا لترجع أما اللغوية قالوا أفك عربي على الأدب أيها جود جي الصومالي جود جي أف صومالجو أو سبيل سير بحين وسبيل سير أفكار الصوماليات كدي بركي لقوله واقعي كدي أيه وحي أبحيين إرجع السجان بأبحيين وحي لترجع الله يقاله أفكار قال اللغو يقاله أفكار الصومالي قالوا أفكار عربي قالوا اللغو يقاله على الأدب إرجعوا معليه الصومالي تامولا إرجعوا أريحان ووشري إلى يبكنا ووشرا وحالوا ليهي معنى ياشي سي كلو في صوماليا كلها بورت إريقوا ليهي إري معاوة أحبالتها سولة سبيين باها واي ووشري معنى ياشي سي لو حبالتي معناها العلم قاعة الأدب أبلتها تلبويا شيء لم يتطبعتك ولي وحوا في صوماليا كلها معنى يالكالي iyadoo lagu xisaabtamayo gobolada kala jaalka ee dadka Soomaaliyeed ay ku nool yihiin dadka qaar waxay suugaan u yaqaaneen marka roobku doo qayoodka dhaca saxada udgoon ee dhabata sanka la raaco ay dadka qaar waxay dhahaan suugaan baa dhabaynaysa dadka qaar waxay u yaqaanaan marka dhulka oo abaaraha روبدو وقبات كوجه رأي صوف فها ساعة عجارك صوب حبينا هالمال هبلاي وحوجا السجانة بيلاذاي
ودوق بيقول قانون قالوا أنت هذا قانون أنت كا قانون وحلا يا بعد كرو معناه كرو تقالالين أنت كا قانون بشرية dadka qaar waxay u yaqaanaan marka xanuunka la tubo shaandada la qaato dadka qaar shaandada bay yaqaanaan shaqshaq bay u yaqaanaan shaqshaq shaqshaqda la qaato sidaa lagu yiraahdo waxa ka dhaca waxa hoosta mara xanuunka intiisa dixiinka ee budada abaabarta xagga sarena waxa ku soo hara inta kale ee la sii tubayo baa ku soo hara inta dixiinka ah ee dhacda ayaa dadka qaar u yaqaanaan suugaanta xanuunka ay u yaqaanaan intaasoo anigu macno Soomaaliya ku leedahay waa la qaar waxaa laga yaabaa in macnayaal kale leedahay markii af soo ereyga suugaanta loo sameeyay ereyga suugaanta waa joogay markaa guddiga Soomaaliga waan ku jiray qolada budada qaatay mala wax waliba hadii uu wax waliba wuxuu hadalka mala intii saddexii kaabisu inta yar dhaafta shaqshaqna ee faraha u macaanay aragteen suugaantuna mala waxay noqonaysaa hadii afka la eego intii yar shaqshaqna dhaafaysa ayay noqonaysaa shaandada dhaafaysa noqonaysaa ee daqiiqa ayay noqonaysaa hoosta suugaan macnaheedu waa taa suugaan waxay u qaybsantaa laba eray laba waji bay leedahay ereyga suugaan waxay leedahay waxa la yiraahdaa tix iyo tiraab ay u qaybsantaa tix iyo tiraab afka ingiriisiga anigu ingiriisiga naqaanaa talyaaniga ma qaano carabiga waa naqaan ingiriisiga Swedish ma qaano isaga ka waa la hubayna noqon talyaaniga ma qaano waa shaac bay sheegi doonaa waxa lagu yiraahdaa tixda afka ingiriisiga poem baa lagu yiraahdaa poetry tiraabtana prose baa la yiraahdaa af carabiga hadda qaato waa nadm iyo nasr baa lagu yiraahdaa nadm iyo nasr ayaa lagu kala yiraahdaa nasr waa tiraab nadm na waxa weeye waa tixda waxay Soomaalidu qaadatay eeg tixiya tiraab waxay leedahay eraygu labada eray wax meel bay daaraysaa erayga labada eray laftooda ayaa waxay u fududyihiin xusuusta marka doonayso suugaanta waxay u qabsataa lagu yiraahdo labada eray isku xaraf bay ka bilaabmaan tix ta iyo ta tix tiraab bay ka bilaabmaan Soomaalida af Soomaaligu ma qorayn muddo dheer ma qorayn waa afdheeyay qoraalkiisu sidoo sanood yahay marka dadkeenu waa oral suugaanteenu waa suugaan afeed wax la yiraahdo suugaan afeed oral literature weeye ko adab shafawi weeye waa tahay xusuusta waxa fududeeya xaraf raaca wax la yiraahdo xaraf raaca waxa lagu jeedaa erayo isku xaraf ku bilaabma oo qaar lamaanayaalihi bay Soomaalidu isticmaashaa afkeeda ku badan oo ay markay doonayaan inay wax xasuustaan tixiya tiraab bay qorayaan kafal iyo kaw dooc iyo dareen rag iyo ruux joog iyo chief tiro iyo tayo af iyo adil ee lamaanayaal baa lamaanayaal war iyo wacaal wariyo waal baxday waxa jira Soomaalidu marka ay waxay xaraf raacaas labada eray isku lamaanaynayso laba eray oo isku xaraf ka bilaaba la isku lamaanaynayo waxay fududaysaa xasuusta inaad xasuusto sidaan xagga dambe ku soo sheegi doono xasuustay fududaysaa Soomaalideenu maxkamadaha markay joogto maxkamad geed bay leedahay geed bay isugu jirtay waana isugu timaadaalay imika inta fartalyaaniga iyo Ingiriisigu ila qasid dadku geed bay isugu jireen maxkamaday lahaayeen dad xayawaan oo gaaladu dabada ka jartay maynaan hayne dad ilaahay abuurtay oo diin loo dhaqan loo geedka hoostiisa ku dhamaysta ayuu hay imika waxayna dileen bigaanti kale doonay wax ku dhameeyaan haday geedkiisa tago la oo dhamaysta baa balaya geedka labada fudud geedka hoostiisa waxa laga dadku wax ku dhamaystaan waa tahay marka dadku istigo
gari dhex barto erayada Soomaalidu goboladu kala jaajaad erayadu ha noqdeen laakiin si kaliya ay maxkamadooda u wada dhigtaan oo geed baa la isugu geedka xeerbeegti baa joogta reeraha ka tirsan reerka ka tirsan oo dadka kala saarta waxa la oranayaa yaa dhibaaba tirsanaya baa loo jiray anigu inta soo gaadhay kulliba yaa dhibaaba tirsanaya dhibaaba waxa weeye wax cidii dib sheeganaysa marka dadku isqabto dib baa la kala sheegtaa dibta xeerbeegti baa loo tagi jiray loolana tagaa ibka miigana loo tagaa kow marka dib la sheegto hadaad dib sheegato oo ninka hebel la yiraahdo dib sheegto ama reerka reer hebel la yiraahdo ay dib sheegtaan odayaal baa fadhiya xalbeegti oo kala saar waa kuwa nimka la fasakhay la baabiyay ee mooriyaatu ka qaatay xilkoodii way waa tahay waxa la oranayaa waxa la isku hayaa wixii arrinay la isku hayo laba loo qaybi jiray loola qaybiyaa waxa la yiraahdaa ma waxa arinku ma dhul iyo dhaqan baa horta uu leeyahay laba xaraf oo isku mid ah la isticmaalaya inta uga dalay waa tawaatixiya tiraabti oo kale si loo xasuusnaado erayada maxkamadaha legal terms waa erayadii qawaaniinta hadii loo yiraahdo joogaan way aad uga faa'iideysan karayaan kiisoo dhabe af Soomaaliga waa dhul iyo dhaqan waxa la wixii dambiye dhacaa Soomaalidu waxay u qaybisaa laba dhul iyo dhaqan bay u qaybiyaan ma dhul baa mise waa dhaqan baa loo leeyahay waaya hadduu dhul yahay waxa la wixii dambiye ee dhiig ku saabsan dhul baa la yiraahdaa waxa la wixii ka soo hadhay ee nolosha ku saabsan ee dhaqamaatin kiisas la isku haystaana dhaqan baa la yiraahdaa kiisoo nabi waa labada ama waa dhiig ama waa dhaqan baa loo leeyahay wuxuu ka kooban yahay laba xaraf oo isku dhawaaq ah dhur iyo dhaqan waaya waxa la oranayaa badhur waxa tiri anu kiiska alle waa dhur baan leedahay yani waa dhiig baa loo leeyahay shaqalayaan hadduu dhur yahay faylkii baa baariyay dictionary-goodu bay ka baariyaan xusuusta ahaa ay ka baariyaan kiiska dhiig hadduu kiis dhiig ba yahay oo dhiig ba la isku haysto laba buu qaybsamaa Soomaaliga laba waxa oranaya ma qurba mise waa qoon ma baxday mise waa qoon oo waa nabar waa qaafli halkaas soo wadakiisa waa qaafli hadduu dhiig yahay waa labada kiisoo dhabi ama waa qurba baxday ama waa qoon baa laga hadlaya labaa soo qaybsamaya kiis labaad oo dhiig oo Soomaalidu qaadaba jiray ma jirin waayahay waxa la oranayaa ma kiiskaygu waa dhaqan baan isku haysanaa odayaashu waxa oranayaan markaa ma xilaab isa waa xoolo ayaa la oranayaa markaa hadduu kiis dhaqan bay yahay waa laba bay Soomaalida ka ahayd midka saddexaad ma jiro dadku waxay ku murmayaan amba xoolo isku haystaan amba dhaqalahaado ama mid la kala dhacay ha ahaado amba talaadu xoolo u baa la isku haystaa ama xilaal la isku haystaa maxkamad baa la isku jiraa naagti baa la furayaa naagti baa la qaxinayaa mid baa doonan dumaal weeye xigsiisa weeye kiis dambeyle oo waa fayl dan kiiska dumarku marka kiisoo dhambi wuxuu af Soomaaliga ugu qaybsamaa xiro iyo xoolo ayaa waxa lagu fududeeyay xusuustii xaalay baa la qaatay oo waa xiro iyo xoolo u dee waxa oranaysaa odayaashu waxa oranayaan waa xoolaad leedahay ma xilay isku bahayle waa xoolaad leedahay odayaashu markaa way yara faliisanayaan faylkii baariyaa kulka waxa oranayaan ma barbaa mise waa beer ma bar xoolaad baa waxa la isku haystaa ma bar xoolaad baa mise waa beer baana kaleedo waxa lagu jirin marka kiiskii wuxuu noqonayaa kiis bar xoolaad la isku qabsado ama beer baa la isku qabsanaya dadku labadaas bay hadii xoolo isku haystaan labadaas bay isku qabsan jireen waaya waxa la oranayaa ma waxaan isku haynaa xoolaad la isku hayaa oo waa bar xoolaad baa la isku qabsado
odayaashii markaa way feelkii bay baanayaan waxay odhanayaan ma magan baa mise waa mooro ma magan baa mise waa mooro xoolaha laba u bay noqdaan xoolo xerada ku jira oo magan ah oo xero u dhalana yaa isku qabsada walaalaha dhaxal baa la isku qabsadaa waa xoolo xeelaha ku jira xeladii bay ku jira xoolahaas waa mooro xoolaha moorada ah moorada waxaa la yidhahaa xerada af soomaaliga mooro haddaad maqasho waana la mooro duugay waxa weeye waana la xeradaana loo cadeeyey xoolii baa laga baabiyey mooro duug waa yahay mooro haddaad maqasho waa xero marka waxaa la odhanayaa kiis kasta oo mooro ay hadduu xooluhu mooray noqon karaan waxaa isku haysta mooro ehel walaala isku haysta dad isdhalay baa isku haysta ilmaadeeru baa isku haysta waa mooro oo waa wax dhaxal ku saabsan oo bahdii yareed baa bahdii weyneed ku haysata kiis bay leedahay oo kiiska moorada waa la yaqaan sida loo qaado kow haddii kale xooluhu waa maganoo baadi bay kugula joogaan oo magan bay xooluhu ku yihiin ama dhacbaad ku heshay oo ay kugu soo galeenoo xoolahaasu xoolo xerudhalana maaha waa xoolo magan kugu yibiyo sibaa dacwadooda loo furaadee oo ammaano raagtayed baa la moodaa gaadiid qaad baa ku jira haddii ku roodahay halal laysa siiyo maale baa ku jirta oo layska dabaaciyo oo waxay gelayaan magantay gelayaan baadi baa ku jirta dhac baa ku jira tuugaa ku jirta kiiskaasoo dhan waa kiis kale oo waa magan ayaa la odhanaya oo labadaas soo qaadaya marka kiiska la kala qaado ayaa la isu imanaya waxaa la odhanayaa dadka qaar waxay isticmaalaan laba xaalaa lagu kala baxaa soomaalidu waxay diintii bay ka soo qaadanayaanoo albayinatu calaa man iddaca walyamiinu calaa man akar baa layidhi oo waxaa dhaar baa laga doonayaa haddii ninka muduciga yihi hadduu markhaati keeni kari waayo hadduu caddaysan kari waayo ku dhaaraa la leeyahay waxaa la leeyahay waxaa leeyahay muduciga markhaati keen muduciga waxaa laga rabaa waxaan inaad leedahay ee aad sheeganayso marag ma haysataa hadduu marag waayo cidda mudaacanaha la leeyahay ka dhaaro siyaasada diintiina soo gaarsiisay alyamiinu calaa man iddacaa اليمين على من ادعى البينة على من ادعى البينة على من ادعى واليمين على من انكر بين قوليسا مرخاتي با laga rabaa marag ba laga rabaa qofka mudciga ah qofka waxda firsana waxa laga rabaa dhaar ba laga rabaa marka waxa loo leeyahay marka kiiska la isku qabto ayaa waxa lagu leeyahay milad iyo marag ba la isweydiinaya milad iyo marag ba la isweydiinaya marka waa miilay markaana milad iyo marag ba lagu kala baxaa milad amba dhaar baa lagu kala baxaya milad waa la dhaaranayaa ama marag baa lagu kala baxaya ayaa kiis lagu kala baxaya haddaad tagto dhulka jabuuti iyo dhulka ciisuhu degeysha haddaad tagto waxaa odhanaya xeer iyo xaagaan bay ka hadlaan iyaguna wax la xeer iyo xaagaan ayay ka hadlaan oo waxay odhanayaan mar garcadaa waa la isku qaadayaa garcadaawe waxaad leedahay aniga xeer ha lay mariyo waxa weeye sida sharcigu sheegayo baa ku baxaabaad leedahay xeer baad qaadanaysaa dacwadii marka la qaado ayaa lagu weydiinayaa xeer baan qaadanaysaa mise xaagaan dadka qaar baa odhanaya anigu xeer baan kala baxaynaa macnaheedu waxa weeye yacni anagu garcadaawe sida kitaab ku taalla ee xeerka soomaaliya hana lagu kala xukumo baad leedahay xeerku waa sidaa kow dadka qaarna waxaa odhanaysaa may xaagaan baanu qaadanay xaagaantu waa baxay waa xeer jajab baa la yidhahaa gobollada qaarna waxaa laga yidhahaa xeer jajab oo waxaad odhanaysaa yeelkeedii inkastoo gartaydu caddahay haddana ayeydey bariga ayeydey jabtay ayeydii baa u soo gurbatay halkaa abaal bay lagu lahaayeen xaagaantaa marka kiiska bogga xeerka la qaadi maayo xeer jajabkaa la gelayaa marka ayaa la gelaya xarfaha isku xarafraaca erayada xarafraaca leh waxaa la isticmaalaa waxa yani because afkeenu waa sugaanafeed lamaanayaashaasi xarafraaca leh ayaa waxaa loo adeegsadaa in wax lagu xasuusto markaa sheekadeedii aan ku soo noqdo hadal baa ila galaye
تحية تراب تاجر يقول عليه تحية تراب هاي لقش واضح مركز جبوده ماركته دسي جبوده بس كحد وحكب بطال أنا يقول لكم صلابات كل شيء قال الديوان كله كونية هذول ميل هيستي أي الديوان كله جلسة لكن سكولو ما أدري فايد ترى بيعين فايد ترى عليهم بالبرية واضح تحية تراب صلوا الصومالي لما لها صار استمر وحليلي سوقات وحي وقبضتها تحية تراب تحية تراب تحدو وحد الوا هذلك تحية تراب تبحي كل دوية هو تحدو وهذلك له وحد تحدو وهذلك استا أو له حرف راء إيوه حبدع أي لا ضحي تحدو waxay kaloo leedahay waa la xigtaa waa la soo xigtaa iminka tixdu waa wax laalo wixii maasa ah gabay ka samaysan baa la yiraahdaa nooc kasta ma ahaatee tix wax laalo wixii sheeko ah sheekada ma tira uma taqaanaan dawlad dadka qaanuuma yaqaanaan suugaane sheekada qaar baa ayaa suugaan hadalka caadiga gabayeysnayn noofalada iyo sheekooyinka gaaban ee la qorayo qawaanib qayb suugaanta ka mid ah koo marka tixdu iyo tiraabtu marka hore waxay ku kala duwan yihiin ta fudud hadaan qaato farqiga u dhaxeeya waxay ku kala duwan yihiin tixda waa la soo xigtaa waa la xigtaa waxa weeye nusuusteeda la akhriyaa tixda sidii qofka yidhi ayuu baa loo qolan karaa tixda afgiriisiga waxa lagu dhahaa verbatim baa la yidhaha hadday wuxuu tix tahay waxaa loo soo celiyaa sidii qofka yidhi dhiishayda caanaha taqaan taababkaa go'an dhiishayda caanaha taqaan taababkaa go'an iyadaba tolliin wuu egyahay waase kala taalle tayday cuslaysay maxaan tari nidii cawday buuri nin bakayl baa yidhi halka waa bakayl buu waa yana bakayl waa maamaada bakaylka marka qolka bakaylka wuu qoran karayaa caawa hayga qorto oo waliba yurub bakhaylnimadu way yara baantay dee oo baakii wax ka yara sugaya oo waxaad leedahay dee dhibaa wuxuu yidhi wada bataydii baan dee maxaan kala qaban karaya marka telefoonaduna way ku yara badan yihiin oo subaxdii baan telefoon badan idinku soo dhacaa waxbaa baktiyaya xaggii waddankii markaasaa waxaad leedahay dhiishayda caanaha taqaan taababkaa go'an dhiishayda caanaha adna dee halkaa mashaakil kugu haystaa dhiishayda caanaha taqaan taababkaa go'ane iyadaba tolliin wuu egyahay waase kala taalle tayday cuslaysay maxaa tari nidhi cawday eeg maasada sidii gabayaay sidii ninkii yidhi u baan u leeyahay degu libaag maasada yidhi waxaan u leeyahay anigu sidii u yidhi waxaa la yidhahaa ingiriisiga verbatim baa la yidhahaa verbatim waxa weeye xigasho waa marka af carabiga waxaa lagu yidhaahaa nusuus yacni naskii baan odhanayaa waxaa lagu yaqaanaa tixda ninku marka uu tixda sheegayo waxaa laga rabaa inuu naskii sheego haddii kale wuu jaban yahay gabaygu wuu jabayaa waaye rag waxaa ku maamulay aqaan ama ku maamuusi wuxuu mase waabahay iyo intaan maga ka soo gaadhay rag waxaan ku maamulay aqaan ama ku maamuusi mase inaanu nahay oy tolliba meertan loo tahay ninkii masalaha ninkaan ii dhigayn midig ma saarayo ninkii aniga iga maarmi kara uma muraad yeeshay ilaahu ku naxariiso saahid qamaar waayahay waxaan u akhriyayaa erayada verbatim baalaya sidii uu yidhi ninka yidhi markaa tixda waxaa lagu yaqaanaa waxay tiraabta kaga duwan tahay waxaan u akhriyayaa verbatim sidii uu yidhi gabayaagu laakiinse markaan tiraabta ka hadlayo waxaa nin walo halkii iyo inan walo halkan fadhida waxaa looga kuwayran kumaandareeyaa ku haysataan meesha kula sheeg kamaandarin kuwii xaggaa ka yimi waxaa looga soo sheekeeyey sheeka soomaaliyeed baa looga soo sheekeeyey ayaydaa diin iyo dacway kaaga soo sheekaysay sheekadii haa dheeraa lagu bariyey cigaal shidaad baa lagaga soo warramay boqorkii geesaha lahaa baa laynooga soo sheekeeyey hadday ku rooyahay
waxa la yidhi soo sheekiyay inta soo sheeko oo sheeko Soomaaliyeed baa la yidhi soo sheekiyay oo caruurta markay reer qalabaad diiri cad awal looga bilaabay ayayda markay ku sheegisay sheekada kuugumay sheegin sidii ayaydeedu ugu soo sheegtay kuugumay sheegin waxay xafiday sheekada murtideedu bay xafiday تبدأ دعوة ما قد حبودي تبدي كي كان دري تبدينا دري تبدأ قالوا روح بيك قالين واحد قري صار يلا قال لكن أقول مركز إلى كاغير وقوله بس عم بين تاذيل سيدي أيدا ريادك وتري بحسوسيت وخاصة تحسوستها قالت لي جدتي قالت لي جدتي ما معناه ما قصدت شيء كذا واحد معناه يسوي marka sheekadii u baakhreeysa wixii macnaheedu waa ma akhriyaysa nusuustii marka waxa la yiraahdaa sheekooyinkeena tiraabta folklore-ka ah marka la isaga soo sheekaynayo waxa la isu verbatim lagu akhriyo waxa la soo wariyaa waxa la xasuusnaadaa sheekada macnaheedu baa la xasuusnaadaa markaas qolo waliba erayada iyada u samaysa cida marka warabaysa ayuu baa erayada his own words ku tahay ma aha necessarily tii uu soo maqlay marka taxdeed tiraabta farqiga ugu weyn kala bedela waxa la yiraahdaa tixdu waa la xigtaa nusuus baa lagu akhriyaa ta kale lagu akhriyo مثلا aniga ayidii waxay iga sheekaysay boqol gees leh ayay iga soo sheekaysay waxay ku tiri boqol baa gees laha boqol ka gees laha qaar waxay ku tiri waxa arkay nin baa arkay khaadinkiisa iyo waxay ku tiri mitibaa xiiriyay baa arkay inuu boqol ku gees leeyahay baa ayuu arkay ko waxay tiri kolkaasuu deelo waa boqolkii waa khatale geesii buu sir buu arkay odaguna uu qari jiray boqolkii uu qarniyay bal qof aan madaxalka fadhiyo oo looga soo sheegay u marin ma yiri jiro oo yani laakiin se daaliga say ugu sheekaysay saasuu baahay waxay iga sheekaysay inuu geesa lahaan dabadna inuu geesi arkay dabadna likii arkay inuu boqorkii ku yaadhay yaa weylak maraqaaga haddii laga baqalo dabad waxa ariga ayayday ugu tiri waayahay buu deeyay lagu baqayaa boqorka dilayay lagu baqayaa kolka waxa la calooshii baa yara weyraatay waa subax walba baa ku korodhaa waa subax walba waa ila warkii baa deesh ayaa ku fiday baa igu tiri islaanto dabadna maalintii dib u qarxi gaaray ila sirtii waxa la yiraahdaa waa Soomaali lagu yiraahdo war qariban wala yahay uu qari kari waayay dabad markii uu qarxi gaaray ayuu dacararay oo magaaladii ka baxay oo meel magaalada dabadeeda uu tagay oo dabadeed uu god qoday ودبل هذا هاي وزيدوا إذا ما قا بقولكوا كيسولة يا بقولكوا كيسولة علوشي وام ساسا يقول تريده ويسوي أنا تبي يقول تري أيدي كان وايد يقول تري أيدي عاي كان سبحان الله ويسكبت بولا مين بيقول ويسكبت لما تقول في السبب كله في السي ماشي حاجة دبابة شيء كذا سيدي أيدي يقول آخرين يدكم على آخرين وحلا واتراب ويا بركة كون أنا قلت مركي أهيد سيديتك ما سأو بدله إسلا شكله يغير ظروفي وكل في شيء وحلا رموز بمربع قبل ياقو حبو بعضها ظروفها هذاك بالكلون يعني رموز بو بعضها إنه وحكو شاكو مركا وحق ما سأقول أنا إسلا شكله أنا قلت السياسة قلت كذا أيان لكن سيد إتما دافين يدا يقول فلاتي سيدي أيدي شكله يقول شكتي أيون بنا نقول أو شكل dabadna uu leeyahay wax kala soo baxay oo kala soo baxo baadayni Soomaalida baadayni xaliyay barkaas waa sideetakii waa dhaxdhiga marka adiga ma sayda akhriyayso idoo waa isla sheekadii waxa laga rabaa verbatim waxa saaro maraan gabanaha bari galabaan adowgeegeedu fadhii jiray sheeko kooban kaga guray wuxuu yiri guyaal hore boqor geesalaa jiray oo goostay waligii ilaa inta lagu garan fula waagadiise wuxuu goorba hubiyo gedfo oo cumaamado gadxiir baa sirtii helay godob buu satarsaday garashadu u sabab tahay nin gafaana laga dhigay hadduu gaabsan waayana inuu gowrac jira maqal hadba giirka loo kici goldololadu helay inay gudubta loo diiday isla waagartiisay walgu tabay la foolqaan hadba gaadhka meel dhigay
goobyaalka leylkii kolkay gama iswaayeen geli dhexe rugtiisiiyo gurigii ka soo bood gudcur beegsay duurkiiyo geliya dugaagale wuxuu gabi dhacleeyaba kolkii waagu galac yidhi geed hoostii faadhfaadh sida bahal goddeer quday dabadeed gafuurkiiyo gadhka ciidda saariyo goofkii sirtuu helay gaagaabsi ugu sheeg dunucdiina gaadhsii inuu boqorka goojaa madax goodir leeyahay markaa basaas yar baa soo maray oo qoladii warkii qaadi jirtay markaasaa waxaa dhi hadday igama geysida waxaad iga guraysaa sheeko bari lahayn kale yuu qaadi baa isleeqaxdi hadday igama geysida waxaad iga guraysaa sheeko bari lahayn kale geesigu warkiisii ku caburay kolkuu garay garbihiisa laga duul gebigiis fudayd duqoy goobtiina aasiyoo ka hurgufay guriisii galbay oo ka sii socay ka gadaala meeshii laya goortii roob helay geesaa ka soo baxay maasadaas oo iyaduna isla sheekada kaaga shekeeyaya haddaad istiraahdo akhri waxaa lagaga baahan yahay inaad verbatim u akhrido labada un baa ku kala sheegaya yani waaya tixdu waxay kaloo leedahay wax la yidhaha xaraf raac oo ay kaga duwan tahay tiraabta waxay leedahay wax la yidhaha xaraf raacu waxa weeye alliteration bay leedahay tixdu waxay leedahay alliteration waxaa la yidhahdaa af ingiriisiga lagu dhahaa alliteration waxaynu afafka kale kaga duwan lahay aynu dir shalay baan qola macallimiin u sheegay afkeenu wuxuu ku yaala horta marka anigu eegay afkeenu wuxuu ku yaala geeska bari baynu ku noolnahay geeska bari waxaynu xad la leenahay Djibouti oo iyadu waa Soomaali bay ku hadlaan laakiin se Djibouti ta afar baa ku nimanka afar markaan xuduudaha iska dhaafo dadka Soomaaliyeed baa ka hadlaya waxaynu xad la leenahay dadka afka Soomaaliga wuxuu xad leeyahay afar ولعفك يا أوروبا أيو لع كجليه يا بورن يا ساهول لما كليناه كلولين حقائد كوفوت أفريقيا ريد الله يلم وأمريكا أفك الصوماليات كهذي وحل اللي هي تابطة وحل ولا هي أفف كليها كوشتك حتى أم حالك حل بالهين حد بينور حي أورما ينور حيسا الصومالي يور أم حالك لو قبصدوا كسود دولي لو قدموا أنت وشوغا لقى هذيا ما كان حاجة سيء قبائل كيسوب البريالان أورما حل له الصومالي أورما ده حل له عفتا حل له حل له إلهي بيتيستاي أفف كليها كوشتك أي حل له الصومالي أفف كوشتك أفضل حيو وحد يجا حد الله أفهم كوشتك الله وحنا كوشتك عندي لا نقول وحنا نقول ده أفك الصومالي مركا أفك اللوسيا أبتريو أفك الصومالي وحلبه هي أفك حد كلا لبه الله يقانو كوشتك وحكم إذا أفك الصومالي ولا ماذا عفرت ساهوغا بورنكا ريدي الله وحي ساهوغ وحكويا وحكوها للضد يرقو كل الوقوي كينيا oo Soomaaliya xad la leh marka abtirsato koshitigu marka uu si abtirsigado saahuuga ugu dhow abtirsiba halafka Soomaaliga ugu dhow ay isku sii xigaan orobada marka lagu abtirsibada marka laga hadlayo afka laga hadlayo waxa laga hadlayaa dhismaha erayada mar waxaad ku xagga erayada waxay ka wadaagnaa baadaygiisa oo lawlay afafku waxay isu kala xigaan mar وحساب سيابها يسوق الحجار وحكمده مر وحذاقيسا أنت أري وذاقان بعديقيسا مر وحذاقيسا قواعدك سيدا قرام الكود وصبا يسمو أي يسوق الحجار أو أففك أرمضو أففك حاجة قواعدك ما كان سيدا أريدو يسوق البدلان ما كان كهلا يسوق واحد شوقة يا واحد مقال يا واحد صوص عضه عند كلام نجيسو سيدا إرجو يفعل فلك يسوب البدلو سي إسكو مذا بو يسوب البدلها أففك يسودو أو سيدا سيد يسيح إلى قوة كله واحد يسيح إلى حاجة أريضة واحد يسيح إلى حاجة قواعدك أريضة ما خديم كتيرنا قاطو تيرنا يعني ما خديم عفرت هي بيقولوا ورمضة أو وأوفر هذا أوفر ستان إسكو بدأ متبعنا ومركا يومك
oromadu ay tirinayso 20 markuu ka bilaabo xaq oromada qaar bay iska badan bay iska mid tahay markuu 20 ka bilaabo 20 30 40 50 afartu oromadu waxa oranaysaa 40 50 iyaga inaguna waxa leeyahay 40 ka seen u socono ayuu baynu Soomaaliga oranayna كنت كاير يقدر هذا واحد اللي شابوها حق هراء اللي كانوا لما صدق شاب هيدي أنا ما دي وحكى عقل بيكون على سؤال كبير يقول تودي شلتهم بيتيرين إلا هو واحد اللي كنتم سبب تيوالو بركان سبب تبالي قولي على أفكار واحد شقيسا سبب تيوالو الله حكى لبعض وعوي واحد كنت نقولي عفرتها أو إذا قلنا إذا نقول أبايي قلنا سيدا أو تريسا عفرتها لو ذاك كنتك oo iguna 20 40 kontonta laakiin sayagu maxay halkay farqi ka leeyihiin inaga iyo oromadu 5 waxay u dhaqaanaa 5 laakiin saxaafadu waxay u taqaanaa kone waxaan caawa jecelahay caawa cid halka jira barnaamij uu caawa cid halka jira waxay u yaqaanaa kone 5 konadoodii baa markay gaadhaan de xageer dambe konton noqotay inaguna way la wadaagnay إذا قلوا له ذاك كنتك وقرع هكاك سوق علي أفرتوا إلى سوق علي كنتك لكن شتب كانوا على بينك واحد سيدا عادي شتب كانوا على بينك واحد شتب وايه مركا أففك وحيجي من ولا بتوبك لكن توبك وهذا توبك الوقت ذا كان لي ما وضع ترست يقوله ووضع ترست يقوله لكن زمين كي ما هالو السعودي waxaad qaadataa afkeeda marka uu gabayga la tirinayo alliteration baa iigiye hadalka alliteration baa iigiye marka la tirinayo ereyada alliteration ka la tirinayo afka Soomaaligu wuxuu ka bilaab waxa leega xarfo isku ereyo xarfo isku mida ku bilaaba ayaa tixdu leedahay ereyo xarfo isku mida ku bilaaba ayay leedahay أي لا هي عفو صومالي مركا قبل قبل يا تسوق هذا ليس أو التليس مركا وايه لحظة روحوا لي لما توي ليو نما ولي لما نانين لما تنوي ليو نما ولي لما نانين لحظة نما يوفوفتيو نما الليلي ثلاثين بل هدالي نبى لا سلي وحول غاية ما حاك قالوا الموضوع دول بي ويا من باكو قبي عنك لا بلي بده تريا سؤال كبيس حرف كوكس الله وأريو بقارنا يا لام كوة بلا ما لام كوة بلا ما مركان لام كي هالكان لقربها لام كي هالكان لقربها وحال لقربها إلو أريو كبلا مو للباتن ويليو لما ولي لما نالين لحدا لما وفوتو لما لي لاب كيما كبلا بيسا محاك مرة دالي دبا لا سليد وحاو لا عاية لا وحرفه إنجا وحرفه اسكوميدا باي اريادو كبلا مان إما هجابا كان غاتي وحيكون بلا مان لام بيكون بلا مان وإنو سيدا راعو alliteration باليدها قبل ما سكست ولا ترى لكن سأففك كالأوي كولا إنه درس كلا يكمل دينا لذي شيء أنا ماذا يعفرت أي كمدي أو كوا إنه سكون دون حياة إياه كوا كلام قشير أولا وأنا سلا يسولش كلا وكمد عربي ده إنجليزي كان تريالي حاجة دم أريو حاجة دم ب وكل ما ذا قبل يوجو أريو حرفه اسكوميدا بكل ما ذا كأنه لو حوي حرفه اسكوميدا بكل ما أريكو وويدان ويسويدان إنك حرفه اسكوميدا أيو كل ما ذا أو حاجة دم ب أيو كراعيا مركا وكراعيا بانت سعاد فقلبي اليوم ما تبول كعب بن زهير وحصل الملك وخلي قصيدتي سي نبي قال كدي لي كل لغوري عليه يا أخا قبيا قوي واكيها كعب بن زهير ابن أبي سلمى قصيدتي سي ديال عجيب كهيدي ونبي كبر حوسلي مكي ليلي والغدي لي بل النبي قال لي ولكن بجير بن زهير بن ابي سلمى ايايدي وان وحبا كوبيا النبي قال تيسو النبي قال عيدابا ليرو وحو بنيي ديغاغي بو حلاليه اهدر دمك بالي قصيده مدلعيدو يحيى بالد سعاد
فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مقبول قصيدة بلا بطا وكورني اقلام بيكون ما ليس أقول مهلا هذاك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل الله بيكون ما ليس الله بيكون ما ليس إن رسول الله أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول لا تؤاخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل إن رسول الله لسيف يصداء به مهند من سيوف الله مسلول وحكى دبوه خير قال كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمول لاب كان هلكو قال لاب كانوا حقي دبوك قال لي حق لاب كيلي كلنا أنا أقول لقويا وحلو بيا مويالي ولا يجيب اللبان مهلي ولي لاسبك حق قالوا ده كذا قال لي وخلينا هذا وخلينا قافية بالينها مركب مثل قافية بالينها أفعالي أفريسنا وخلونا رايم بالوينها كان لو خلينا لتريشن وحق حروق لها مركا يقصوا على هذا ما صدي صومالي كذا الله الله تحدي ترابته بحكي كل دوين تحدي ترابته لما بروح حكي كل دوين المدلا لسوح تمد على سوحيل طلبات وحكي كل دوين تحدي صومالي وحي لا هاي حرف راء هدي حرف كان لقى بحو وتشبيسا ما صدوا وتشبيسا هدي حرف كان لقى كو حرف كنا هل كان واحد كوستي تشلا يا إلهي واحد سيجلي كليلو حرف راء عسى يسقط بدر حرف راء على شروط فلا بضله أو مركو ما راعي مركو لما لياش راعي مركو راعي قبل تحدى مركو راعي يصير الله سميه لما حرف راء على يسقط عذك ولبا إيج حرف واحد يقول إيج ذيك اللي يدي واحد اتحاد كتاع حرف راعه حرف كل يالقو ولا يا قاضو أفسوبالي كتشره أفسوبالي قوال حلبية صدر الحرف واحد يقول لي حرف كل يراء خدنا هكبحين وجدده بعدين تقول كأو حلقة ربع إلى الخضر تحي خضر أفكار إلى الخضر وإلى هيستو فكبول الرجال قبل هذا قبل ها كقبيسو وإلى هيستو كيش لو ده هادي خديك لو بطحينه وتروح البيسا أو وضحين بيسا أو waxay kula galaysaa af carabi bay kula galaysaa ayaa fidbi oo waxa argaysaa ninkiyo carabi bila ku rafanaya markuu af Soomaali waayo ayaa carabi bila kaaga rafanaysaa ay kaaga rafanaysaa qaarada waxa bay ku tiriyaan baaf oo dadka af carabiga u beerahdaan taab carabi ku yeelay badiyay baaf Ingiriisigu waxa ku muuqanaysaa hodanimadii baa ku yar oo xarafka la yiri ka hadal ayuu ka waayay xarfo badan halkaasuu kalmada carabiga iskaga yara bishlaya أما متكيرو هندية هذا ده هندي كوهلا وبشليه ويسكورين وقلليه قلما يسوق بيه رميو رميال كان يسوق بيه هو غازا شيل بقولوا إلى في إنجليز كبرتة بي أبايا في ترى وبي يوقعي أيها إلى رمي استرداء يرى شخصه وهايستا ما كان سوى حيكتلي هكذا كسبود عيارته سوى حيسلا كي لا لحظة سوق كعيدا أو بيت كعه قال لك على البيستي ما كان سوى ولا تولي وشجيسا واحد تري كرتيريا كل بعدي كرتير ولا ما مقال ولا ما تولو كرتيريا كل بعدي واحد تري كرتيريا كل بعدي واحد تري كرتيريا كروري بيتها كرتيريا كروري أيما كل بقول بيتي وتولى كله إن كير البيجا وحلو مقالو شيطان يتريج تولو يكون ولا كذا أبو كورين مقاسين سيري الوقت كحلا يدب حتى بيسا أفضل أنك حد بايو أفضل وهو سيري يقول ده في جلسة قال يقول في جلسة كوب بدوسه وهو يقولي أفتل ويس كول ويس بودي أفتل وهو يقولي أفتل ويس كول ويس ألف بودودا كودي إنجليزي لما برسوري ويكون عندك تعيبون كودي هدوء في كوكانو سوري ويكون عندك تعيبون ومشاكل أو أنت حرف كوكوات كادو سوري ويكون عندك سير كاينة في إنجليزي قوي قارنا هذا كانوا قطروا وقت هجاد حرف راعو وحو إلاليا وحو عديا خدن لماذا قفك قبياقا
oo waxa la doonayaa xaraf kaliya isaga oo ka bixin marba waxa kugu soo baxaysa qolooyinkiina isku dayday higaada imika qaar way halka way fadhiyaan baa laga yaabaa rag isku daydayaya ragiina bilaabayo waxa idinku marba kalmad markaad beedkii soo yara dhisto ayaa waxa kula kulmaysa kalmad baa kaga macaanaanaysa mashi aan xarafkii loo baahnaa hayde ayaa markaas si Allah si aad u diido garan waysa kalmad xarafkii ku galimayso markaas ay markii qaar carabi baa kala bal ila ducaanaysa marka ducaashay ku gabagale laba ducdo walaga hada ducaato ixtiraaho saala yari ka soo dhaxlay gabay baahantay gabay baa markaa raga qaar balaag waxa dhigtaa ninka nimka gabagiisa barinayay ee laha rag waxaan ku maamulay qaranba ku maamuusi ninka laha meen buu ka gabayay markaas waxa soo gashay wuxuu isiri dhaaro oo wuxuu duliyaa wallaahi billaahi tallaahi buu isiri wallaahi billaahi tallaahi midna mimkii u galbaysadii ka xagabay uu ka socdaa waa miilay rag waxaan ku maamulay qaranba ku maamuusi masayna loo tolay waa meelsan loo tahay wadaalkii ligeelo waa ka gabaga galay markaas wuxuu isiri dhaaro ma gabay saddexdii markaas duu garaway wallaahi billaahi wuxuu yiri saddex magac alle xaajada la iman marisiye buu baleekada xaqu kaga yibi intuu iska wada tulay wallaahi iyo billaahi di ayuu miinkiisu u galay ha u dhaartay ninkii u dhaartay saddex magac alle xaajada la iman marisiyo farshaxanka bulku halku ugu tagay daawo si uu miimka ugu si aanu miimkii ugu bixin ayuu wuxuu soo qaatay khayaalkiisii magac saddexdu waa magac ilaahay buu markaa magac baa u soo baxay beeshi waxa uu ka hadlayaa waa magac ilaahay magac hada waa magac waa miimkiina uu ku jira way ku galaysaa buu yidhi saddex magac alle buu xaajada alle wuxuu kaga maarmay wallaahi billaahi tallaahi eeg waa halka ay ku jirto farshaxanka gabayaagu nin kale oo gabayay ayaa ilaahay buu bariyay markaas waxa soo martay walahu al-asmaa'u al-husna fad'uhu biha ba'ayat qur'aan tilada walahu al-asmaa'u al-husna fad'uhu biha إلهي وحولي هاي مقاعد أسماء الحسنى لينا كبر يا بالي كبر يا إلهي بخبر يسال إلهي يا رحمن ويا رحيم ويا ود إلى كبر يدو مقاعد إلهي بالكبر يا بعد كوريسا بخل الله بليسو بخل ساقب يجي سلوا بعلي بابا قمسكي بعلي تيا بقول كيا وهاد لا صويا وبعلي بكتشا بس غالية سغاش مسؤولي أول بسه هاي مقاعد هاي سغالية سغاش اللي بعلي ده اللي يسكلي باي ماشي لو أبا حرف كده ما الله بير سغالية سغاش كي كلا بكرواي وحوري بقول كذا مقاعد متكلا يا سلام ما ادري غير السد وين حي ما ادري غير السد هي غير السد وين ذلك وابس موضوع عشان قلبها صاير هو خير بيركو واقف لك qolkaaga magac miska feelkaas yahay hada dab si weeyo soo noqonaya Bien, bien. أضوح بيت قلتها. حين خلينا نوحري مرة. الله وضعي هذا دور. بحاكو أرسل تاني أنا هاي. أنا بحال هاي لك وارسل. هذا هو وتصلنا على سعيد. هذا هو أي بخ سينكرا جو بخلي سؤال فيديو. هذا كويني كلا. سيجو صنع قصدي. سؤال ما يبقى يعني. هي بكوريس. سيدا هذا بكوريس. وأخذ بيري هذا. وأخذ بيري هذا. سؤال ويدوبيا وخلاص دوبيا ومن
سؤال بيد قرين لا الفوق ما تنسى واحد بيتوضى ضد وفر بعض إلا صدق هو وقت رسع ولا والله وقت رسع سؤال يوم يا محمد حاج سؤال أنا بارك وصوص غيري معك وياي قبيقة بركة قبي أبوان صوماليات marka uu abwaan Soomaaliyeed gabay ku halqabsado waan bas su'aal weydiiyo ama uu ka codsado inuu dood wadaag la yeesho taariikhda Soomaalida wax ku cusub maaha aniga Cabdi Iidaan noomay kuwa bilaabay manihin waxa jira gabay marka uu qofku su'aal ku weydiiyo gabayaba qofku gabaya su'aal weydiiyo ama uu gabayba ku tiriyo ku soo halqabsado waxa jira gabay aanay jawaabtiisu ku furayn marka inaad ka jawaabto oo ay gabayaaga kale ku qaadan karto anigu waxaan hayaa gabayaa ku qaadatay 30 sanadood ku qaadatay inuu gabay ka jawaabo gabay waxa uu weydiiyay oo lama Maxamed Xaasho ila Xaashina lama uu gabay وحينما دهر قبل قال لي ناخذ وحن كجوابي سقال سنوات كدب أيان دير بك كجواب مركي على سريوات كجوابي كريسة قبل يقول مركي لقوي ديو قبل قاعد يجيسه وحل قوي ديو قطدي سادي يجيسه مرة قبل يقول كوتو سيء هي الضحكة العضو مرة واحد هذا حل جلسك بعدين قبل قاعد سك كجوابي لي هاي بقى يبدو تيلسك آيات هذا وحقوق معها قبيقة على اللوح وقت شوابه يقول يا بارك شركة دعاي سلام ومياه ولي لقوا شيء قبيقة وقت شوابه مبرقة وعلى اللوح وقبيقة أي لمن كوقادين بهجري weerareen dhulbahante ee ay geeloodii qaadeen ee geelii dhulbahante ka soo dhacsaday ee cala luux gabayo ee uu leeyahay waan miyay waalay bahgariye waalay maanagoo shishooraabay geel laga soo dooteen ee uu faalayo ee uu leeyahay maanagii baa isla limi oo may u tagaan isaaq halkaas iska baqteeyo may u doonto annaga maxay laga doonayay uu leeyahay gabayaagu wuu isu gabijiyo qabaayil baa la isu gabijiyo ilaa imika cudur baa kala qabtaa haddii waa isdilaysaa ba hadda imika dadku way kaftami jireen oo kumay kala xanaaqi jirin haasaa waa ku jiray haasaawe ay qabaayilku isilmaabtiga ayaa isu gabi jiray marka suugaanta laga waramayana waa marka kaliya qabyaalada iyo wixii waa hadlay siday u hadleen looga hadlo يعني وحول لي شخفت لي باقري قبل أي كنتو شخفت لي باقري وحي شامو ورّي شلبيد المقارن هذا شلنا نافتالي دراني دي شديين بوانا قش الشييني ويساقوا شقيا مركا عيون شعبك ويل كيلها شعبك كرينا أيو وذاقينا حيابو قشر تقي ملاش الصوروية مركا ولي باقري بولي أبي ولي والبحايدي ولي ما نقال نقول عاقلي بحايدي كالي ما قال قد يا دورتان قال انت يعني يقولون يدور كليه ما دورتان ايو كلها وايا انا waxaan arkay guriga baareekay oo habar jecla baareekay waxaan arkay uu dhintay imikaas waxaan arkay 78 anigu ayaa ka soo bilaabay mudug inta rikoolo la soo dhiibay akaadamiyadii dhaqanku su'aalaha maxaa gaabiya iyaga su'aalaha badagel waxaan ku soo dhaweynaynaa maxamed xaashi dhamac oo ka hadli doono
horumarinta afka hooyo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد أما بعد horta wuxuu markay badan yihiin bad yihiin bad waxaa kugu baahda su-aalaha dadku ku weydiinayaane rida naasti wuxuu yidhi carbeed baa wuxuu yidhi mahma carbeed ba waxay tidhahdaa rida annaasi gaayatun laa tudrak haddaad islaahdo dadka oo dhan wada raaligeen waa lama gaadho nin walba meel yar baa bugta oo intii markaaynu banaanka ku maqlayn nin walba meel yar bugta uu ii sheegaya markaasaa waxaan iyo waktigan ay hor yaallaa isma laha malaha kama maarmi doonto in aynu isku soo noqnoqonno waana da wax idinkeed ku xidhan dee inaynu isku soo noqonno hawlahan sii wadno wakti aynu u qorshaynay oo kasii ballaadhan malaha kama maarmi doonto imika inaynu wax iskaga taataabana uun min kulli bustaanin zahra dulka xaadis yar ubaynu oo almayno aynu sii calaamadino meelahay tahay noqono aynu sii calaamadino ayuubaynu maanta ka gaari karaynaa maanta hayga filina inaynu dee natiijo badan inaynu kala waktiga idinkoo ku xisaabtamaya dee horteeda yaalla wax badan kala gaari kara mayno kuma kala bogsan karayno waxaa maskaxayda imika ku duuraya ee inta qabiye ee aan ogahay iyo labada saacadood ay hor yaallaa oo waliba nusaacaad dambe dee su-aala noqonayo isma gelaya marka intaynu ka gaadhno un baynu maanta heesara ayuun baan ka wadi doonaa wixii aan ka gaadho ayuun baan ka wadi doonaa sugaantii bahota aanadana iyadoo afka aan ka horreysiiyo si aynu ugu noqoto yani waktiga yare aynu wada joogno si aynu meelo badan u taataaban karno waxaan doonayaa inaan intibaahiina kusoo jeediyo afka farta soomaaliga iyo qoraalkeeda waa tahay farta soomaalida su-aalidii weydiinaya marka idaacadii weydiinaysay ayaa waxaan lahaa afka soomaaliga waxaa ku yaala wuxuu weydiinayay sugaanta soomaalida iyo 15 sanadood u dambeysay buu weydiinayay waxaan idhi 15 sanadood u dambeysay wixii Soomaali ku dhacay uba af kale ku dhacay iyo sugaantiisa takharada ku yaalu ba ku yaala hadoodoli af Soomaali ka gooliye oo ka isagu qulux badan sidoo inta labana idinku taala way ku taala qaxootiga idinku yaala oo isaga ku yaala qabyaaladii jajabkiya burburka idinku dhacay 19 dawladood way ku taala isagay ku taala afkay ku taala oo aad ka akhrisanaysaa dhibaatada ay gaadhay inta lag tahay waayo inaga wax waliba cid allahum budee u buuqada kullu inaa'in bima fihi yandah kullu inaa'in bima fihi yandah ayaa yaruna af Soomaaliga waxaynu qoray markaan qoray u sheedo waxa weeye markaan kula af Soomaaliga waxaynu qoray waxaan uga jeedaa waxaynu rasmi ahaan u qoray Soomaaligu qoraalkiisu ka horreeyay rasmi ahaan waxaynu qoray 27 markii 27 la qoray kadib anigu waxaan nasiib wanaag u yeeshay inaan guddigiisii ka markaa kadib guddigiisii ku beero guddiga af Soomaaliga ee akaademiyada xabar fadhiisay jirtay inaan ka mid noqdo anaaba ugu yaraa markaa ragii markaa waqtiga waa tahay guddiga waan ku jiray ilaa intii dalka Soomaaliyeed guddigaas iska waxay lagu dhacay wax badan waan ka qabanay afka waxaa jiray afka waa la qoray markii la qoray wuxuu u baahan yahay afku tadawur wax la yiraahdo development of the language waxaynu qoray far baynu qaadanay fartaynu qaadanay waxay ahayd far laatila waxa lagu qaatay bimarsuum almalaki madaxweynaha ayaa go'aamiyay oo yiri way taala markii dee la burmay Soomaali murankeedii batay ee Cusmaaniye qaar la yimaadeen ee qaar af Carabi la yimaadeen ee qaar Laatin la yimaadeen waxa dagaalka farta Soomaaliyeed qoraalkeeda waxa ka dhacay Star War kiiba ka dhacay waxa hada malaha carabku qaldi maayeedu bala kulanteele
sidii caanaha qulquliya ubaa la kulanteele sidaa caanaha intaa la qulquli sidii caanaha waxbaa ka horreeyey star war baa ka horreeyey star war waa lagu dagaalamay oo waxaa ku dagaalamay kaljarada kala jaarka ah baa ku dagaalamay dhaqamada kale ee carabida iyo laatinka ayaa ku dagaalamay iyo wax Soomaaliga ku soo bax markaa waxa ugu weynay Ismaaliyeedii baa ugu weynay dagaal badan baa dhaxmaray qoladii laatinka lagu qoraalahayd iyo qoladii qoraalahayd lagu qoraa Carabiga dawladii markaas waxay go'aamisay go'aanna waa loo baahnaa in la qaato waxaa la go'aamiyey in laatin lagu dhawaaqo laatin iyada oo loo eegayo qolada carabida ku shaqaynaysay markaa way ku kacsaneen laatinka oo waxay laadiin weeye laadiin si looga qararo laatinkii bay ina maqnayo laadiin bay dhahay waa diintii oo laga baxayo si looga qararo ayay dhahay at the end of the day waxay isugu soo ururtay in la yidhaaho laatin ha noqdo iyadoo oo la eegayo waxa la yidhaaho cost effective baa laga eegay oo khaliya waxaa la yidhi madbacadii weyneed ee xabar markaa taallay ee wax lagu qoray labadii dal ee isu tagay ee Soomaaliyeed midda Ingiriiska haystay midda Talyaaniga haystay labada markaa farta laatinka ka dhaxaysay labada dal ee isu tagay farta laatinka ka dhaxaysay oo yaani teebabka yaala ee madbacadaha yaala buugaagta waxa yaala oo dhami waxay laatin bay ahaayeen waxaa la isweydiiyey haddii lagu qoro ama Ismaaniyada ama Carabida in loo baahanayo qarashka ku baxaya in la sameeyo madbacada la soo raro in teebabkii hore oo dhan la qubo oo teebab cusub la keeno markaa computerka waxa lama jirin in la keeno waxaa la yidhi cost effective maaha sidaas waxaa ka hawl yar si aynu markiiba u dhaqangelino bil gudaheed baa la yidhaha lagu dhaqangeliyo gabigeedaba halagu dhaqangeliyo iskuulada laga shaqeeyo xafiisyada waxay suuro gelaysay oo keliya teebabkii yaalay iyo madbacadii taallay iyo qalabkii yaalay la isticmaalo oo markaa laatin u baahnaa in la isticmaalo laatinkii baa la go'aamiyey in laatinka lagu dhawaaqo markaasaa qoladii carabida ku shaqaynaysay wali waan xasuustaa anigu guddigu iyadoo sheekadu markaa ayaa kusoo biiray iyadoo markaasoo lagu dhawaaqay baa kusoo biiray murakii xanaftii oo socotaan ku biiray xanaftii dhex taallay labada tayaar oo isxoqaya baa kusoo biiray qolada carabidu markii laga qaaday laga xoqoraaday dee dawladdu xoqoraa kale waxaa keentay yani marsuum malaki baan deydii ayuu ku dhacday ayaa waxay dhahdeen bal waxaa yeeshaa bal waa yahay sida loogu dhawaaqayo wax kale waxaa la weydiiyey sida loogu dhawaaqayo bal carabidii dee aynu diinta la wada markii aynu diinta wadaagaynay afkoodii bal sida loogu dhawaaqayo uun dee haatan xarfaha bal laatinkiinaaba ha la qaate aynu ku shaqaynaa layidhi oo aynu dhahno qaaf kaaf laam miim sidaa ha loogu dhawaaqo tiina qoladii laatin ku weydiintay waxay dhaha no way adag tahay waa complicato in laga daayaa layidhi in laga daaya masha oo waxaa la yidhi golbaydarkii waxaa ka sahlan bay yidhaaheen inaynu waxa oo dhan baataajaxaqarayo ilaanaada ya-da kaga baxno taataada oo aynaan marna jiiba iyo faaf iyo ka isyala barbarin ayaa ka wanaagsan bay yidhahdo taa carabidu socon maysa baataajaxa ha la qaata bay yidhahdo oo dhawaaq isku wada mid ah oon ilmaha yar complicaarayn ha la qaataa layidhi waa lagaga xog halkaana waa lagu jabiyey qoladii af carabiga waa garanayaayo waa yani dagaal ba-an buu ahaa oo bilkaas waxaa la yidhi baataa waa nagala baxaa la yidhi kaaftiya laabtiya qaafta waxaa la qaatay baataajaxa oo wadaa inuu codku isku mid noqdo kow waxay yidhaaheen qoladii carabidu waa ilaahay ka yaabo wuxuu daaldaba badna siiyo oo waxay yeeshaan alphabetical orderkii A B C D E F G H I J K L M N W Y Z sida ka daayo oo alphabetical orderkii xuruuful hijaaga ha laga dhigo oo ha la yidhaaho baataaja abjadiyadii ha la raaco
sida carabiga u kala horeysa ha loo raaco baataajaxa ha loo raaco waxaa la aqbalay taasaa la aqbalay intaasaa loo ogolaaday waxaa la yidhi alfabetku ha noqdo alfabetical orderku tasalsulku ha noqdo kii carabiga ha u kala horeeyo halkaa waxaa ka bilaabmay halkaa eeg wuxuu marka aan si linguistica loo eegay si cilmiya marka aan loo duruuf baana markaa jirtay keenaysa runtii anigu waan ku habalyeynayaa raggii maalintaa go-aanada ka maanta dadkooyna hadday maanta soo gaadhi lahayd af soomaaligu aanu alxamdulilah inaanu waxaan hubaa maanta in qolo waliba odhan lahayd iyo qabiil waloo geed hoos joogaaba fartayda hala qaato ayay noqon lahayd ilaahay ila naafiyey taa alxamdulilah waa laatikaasaa laga dhaxeeya ay ku wada heshiino dee imika dooyo soddon qibladood baynu tukan lahayd marka waxa laala wixii berigii qiblada keliya aynu lahayn soo baxay qiblada keliya berigaynu tukanaynay wixii soo baxay baa imika ka akida oo aynaan imika ku muransanay waxaa la yidhi aynu sidaa ka dhigno farta saas alfabetic orderkii baa la yidhi carabi ha noqdo ilaa iyo yomana haadaana waa saasuu yahay waayahay waxa isu kaa qabo waa dhinac bay ka qadantahay markaad eegto oo eeg laba orthography waa laba orthography oo kala jaada حروف الهجاء يا حرف يعني لاتيكو ولا بورتوغرافي ولا جانا كو لاتيكو اوردر موديليه اوردر لا يقان بوليه او هدو طلياني ku hadlayo iyo hadii suulantiina libala ku hadlayso iyo hadii ingiriis ku hadlayo haduu portuguese ku hadlayo alphabetic order latiku waa isku mid all over the world keen oo bagara iyo waxa doonayay wixii fahmay keen oo ba ka duwan oo fartiina iyagay la wadaagnaa in higaay orderkiina carabiga la wal waxa isku dara hybrid wa hybrid مشكلة حرادية أو يعني كحدي ظروف تأريش جاية كيرتي ظروف تعين كاسة ما كيرتي وأنا سكوا حكسوا قاعدي نصيبه يا شيء لجودي مركا أفكار قريب كذب كصابير وأنا يعني حسوسنا هاي طيارات كيس تحسودي حسوسنا هاي يمر أكيد تذكر هاي ودون أمر غاتا وبعضهم الجواق برسية مركا لكن الحمد لله أمر كيد أمر كوس كسر بابايو waxay noqotay wax caadi oo imika de yani ayna imika su'aal bay iska weydiinay bay noqotay ko waxaanu barigaa ku jiray oo immediately markii lagu dhawaaqay anigu markaa guddiga af Soomaaliya kuma jirin markaa lagu dhawaaqay markii lagu dhawaaqay kadib baa ku soo biiray oo laakiinse wixii markaa dee dadka waxaanu la kulmay markii la sameynayay erey bixinta markaa anigu guddiga ku soo biiray oo waxa la yidhi si af Soomaaligu waa afka dalka baa la yidhi koowaad waa in shaqaaluhu ku shaqeeyaan waa in iskuuladu ku shaqeeyaan markaa waxaa jiray waxaa loo baahday terminology baa loo baahday waxaa loo baahday wasaaradda beeruhu terminology bay leedahay wasaaradda cadaaladdu legal terms bay leedahay terminology qawaaniintay leedahay tii yani tii tacliinteedu waxaabay u baahatay manaahijtii إلى السكولة دي بقى الله صبيني يا بوجاجي حسابتي تربيتي بقى بعطي وأمريكا كيسيا نبض تيارو صبيني لو كيسيا نبض تيجي إلى صبيني الله صبيني تلا بدور شهي تلا بدور شهي الله صبيني حاجة شلا عملي حاجة على قش وحيبقى هت تربيتي لله صبيني مركا واحد جودي الصومالي واحد وقبل شيء سنسوي كانوا شو يشتري سنسوي والبوالي سوكا يشتري واحد لو غيبي فيلدز وحلو يا ريدتكي فيلدز كلا تاجات كرجي قوانينتا رجي كشري مثلا بيرها قلدي شلارها قلدي ميلتريا أنا سبيري لي درجويك كاشالة سرة كاشالة كبقول وحن نمبه وحصل شغال وخبرني ميلتريا قالوا يارني وقال وحنا كاشالة دي سبيري يسري يقول وحن يعني شيء وحوليه هي تاريخنا أو يعني تبغى يترستيكا ayuu leeyahay oo qolo waliba markaa waa lu siibano markaasaa waa la isleegayay qolada militarigu iyagaa samaysay laakiinse annagay dhelahay nool rabiya sareeye guud sareeye gaashaala dhexe dhambe dabla dhiban yani markaasaa udhaana way maraysaa ma marayso ma marayso idinka waxaa idiin imanaya wax diyaar oo sixri lagu sido
laakiin sida madbaxaan ku jiray madbaxa lagu qarinayo cuntada ayaa lagu jiray madbaxu hawl bay dhabuha waxana laga hadlay kow marka ay bixintaas dhinac laga sameeyay oo degdeg ahayd oo waxa la doonayay wasaaraddu waliba inay ku shaqayso markay wararka isu dirayaan ku socota wareegto maxaa la circular wareegto u bixiya circular wareegto ku socota saakor ku soo sheegay magalaysaa oo calaamadii la qoraya taariikhda sumajiid markaas qoraysaa oblique sumajiid 00 sumajiid ujeedo markaas ujeedadii qoraysaa magalaysaa ku waa ku socota ogeysiin waxaas ogtahay si aan isku dilabelbaysin ogtahay يعني bari tarasi bay runtii waxaa soo ribaa dawladii inay warshada ka soo baxaan oo la qaybiyo dawladnimadu wax qiimo leh ahayd anigu imkaan dareemay markaad waxa weydo ayaa dareemaysaa wax weyn bay ahayd oo imika ma idaamulantay warshadu baa idinka soo tuulayno ma idaamulan imika saad wax soo saaro waxa la Soomaaliyeed baa soo saaray bariga waa la socodsiinayay waxa beesha yani كو waxa kala berber socday kuwaas oo ay bixinta sameeyay waa wax qodobka la socdaana waa ka waxa berber socday Somali language development ila wixii waa lagu dhawaaqayo waxaynu ku dhawaaqnay orthography baa lagu dhawaaqay far laatiin la yiraahdo oo aanu markaa la isku dayay markaa la yiraahdo fartii waa sideedii bay ugu dhawaaqmaysaa marka laga reebo a iyo ha oo aan ku jirin kii gaalada ha يا يا دا يا خا يا شا او يضرب لك ايا لسي قال الله كان لو دواقو في يا زد يا زد يا بي ما ناتوري برغا يبقى سو على طول ما ناتوري waxa la yiri awaalti bargaa soo saaray waxa ku jirtay waxa la wixii kelmadda inoogu timaada afqalaad ee aynu sida magacyada dalka oo kale waa qaanuunkii markaa soo baxay erayada inugu yimaada afka ajnabiga ee dalalka magacyadooda oo kale meesha xarfaha aynu saaray ku jiraan sidooda loo qoro Zimbabwe zedha loo qoray heshiisku saas waa si ayna caalamka uga horban waxa la yidhi ka afafka kale ee qalaad wixii kelmadda leh Portuguese dad qorayso Portuguese lama qori kara baa piidooda lagu qoro way mali qaanuun markaa hirgalay buu ahaa idawayto saar wax badeysay dadnimada aynu uga noqonay afkiina bar baynu ka noqonay hatta qawaaniintii bariga qaar baa laga noqday oo la tuuray taasi ka mid buu ahaa kow waxaanu bariga la isku raacay si degdeg la isku raacay iyo xarfaha laba baa حرف الله بالله بالله صوص وحكوا له صوص عليه حرفها روجو يا نبرجع إن إسكولهيد كلادهيد إسكولهيد كلادهيد وحكاس حرف أيات قار واحد كلا كلادهيد إسكولهيد كلادهيد ما كلا أو كلام معنى نقوليه بركة ده في الكلام معنى نقوليه waxaa soo laba waxay ahayd waa isku baxsiyaro wax ka afka lagu istiiska macna sameyn bay soo ibka isku dhihid kala waa iska kumeel gaar bay ahayd dhismay u baatay wax liso waxay ahayd nin baa masdilay iyo nin baa masdilay oo kale ayaa markaa degdegii la iska yidhi kala dhihid kala waa laba kalmo waa laba jumladood oo laba macno kala sheegaya oo meelaninka ayaa faacila meelaninka ayaa mafcuula ayaaka waa laba sentence oo kala jaan si loo kala qorayaa baan deetibi sida farti waa inay codka ila fartu waa representation waxa waa sawir matala codki dhawaaqi matala ma matala yadi waxa jira nisba mastili iyo nin baa mastili qabyata libahay oo waxa ku jira intoolay waxba culays meel baa faul baa ku jira mid baa faul iska mid culus yahay mid culus sida dul iyo dul oo kale
duul iyo duul oo kale beer iyo beer oo kale inan iyo inan oo kale berigaa waxaa bilaaba waa la saas ubaa loo qoray waxaad ku fahmaysaa un halka ay jumladda kaga jirto laakiinse waxay ahayd in loo sameeyo dee inaynu helo xal waa in la helo aad inanka iyo inanta ku kala saarayso mar aad tiraahdo apostrophe ha lagu saara mid yani wuxuuba dee wixii laysla gaadhaa ma xuma wax laysla gaadhaa ma xuma laakiinse waxay ahayd qabyo taalle bay ahayd oo aanay buuxin karin isku dhigid kala waxaan shaqayn maayaan oo ahayd markaa ajandahay noogu jirtay in la yidhaahdo ha la helo xal ha loo helo si kumeel gaara baa afkii loo sameeyey loo baahiyey markaa kadib baa la doonayay in la dhiso markaa oo la Somali language-kii la dhiso oo la dhifalgareeyo kow waxaa la yidhi waxaa laba laama 7 xaraf ayaa laba laama baa la yidhi waayahay gadaal waxaa soo baxday inaanay 7 keliya ahayn 7 keliya inaanay ahayn baa soo baxday kow oo bal waxaad igoonta geelu xanuunka uu qaaday caddo la yidhaaho caddo ayuu geelu qabaa هذا يقول هذا رأى كوه هذا شيء عرو مركز الذي عرو ذاتك قرينا خدنا كوه لو عرو تلاذا عرو يعدو مركز قولنا في المدن ما جدو كله في المدن ما جدو بلا ما جدو هذا يجي تلا مبور ربك الليل جدو ناسو هذا توا جدو ناسو iyo wiilkii taxaankii wuu haray hadda wuu haray baa lagu yiraahdaa afka qolada dhaqan tiraahdan eegaya qolada dhaqan tiraahday waxa tahay taxaankii wuu haray eebay laakiin sahiblaayo marka leedin maxaa oranaysaa way hadday inantu way hadday inan kula wuu haray waa marka qolada raacda tiraahday daawida way kala socoto way hartay iyo wuu haray bay oranaysaa ayuu oranaya laakiin ka dhaqan ku hadlay uu kala muuqanaysaa farqigaas cado iyo caddo oo kala ku soo baxaysa waxa ku imanaysa hadal badan leedahay badan kan markaad sheegayso iyo magaalada badan markaad sheegayso badan isku dhacma hadde badan iyo badan isku dhadan ma isku kala jaad waayahay dhacdaas markaa oranaysa in laba ku soo baxaysa waxaad leedahay dad way laba oo koow hadday laba si aan u qoriyaa baa ku haysatay DH baa qoraysa caddo markaas waxaa soo baxaysa waxaa loo fadhiyay baa soo baxaysa ayaa waxaan kula afki waxaan imka hadaladeedii xasuusinayaa qabyada ila sugaysaa dawlad caawa inuu halka ka gaadhay kuma sheegayo waxaan idinku sheegayaa waa bal diraasada socota ee ay tahay inuu ka wada qayb galo si aan loo oran afkii reer hebel baa afduubtay ayda wax laga wada qayb galaa ma wanaagsan bishada taala wata waayahay labada dhacba saad DH saad galaysaa markaa bahalkii ma suura galaysaa waa inuu xal helade xal waa leeyahay oo bariga waxa la isku qabtay war xarfahan ay leedahay DH iyo SH iyo KH ay leedahay wax war ka daaya baa soo jeediyeen oo match afka ingiriisku ba aba marka uu shii ku leeyahay esta oo xaraf gooliye ah iyo ejta oo xaraf gooliye ah ayuu markuu doono isku keena markaasay u soo baxdaa shii maxaa uga dhigaysaa xarafka sha sh maxaa uga dhigaysaa gaaladu bay weynaalada shacda oo xaraf sha la yiraahdo gooliye ma sameeyaane labadoon bay isku qadaraan markaasay ka dhigtaan sidaa maynu saa ka dhigaan oo waa laba xaraf oo jireen maynu daydu baa la soo hadal qaaday bariga waayo waxaa laga baqayay dhibaatada oo kale inay timaado meelaha qaarkood inay caddadaas DH taas inay kusoo dhacdaa baa laga baqayay kow oo shacdu wuxuu ku jiraa kuwa laba laaba ayuu soo galay basho markaad leedahay oo kale basho yaayuurta dadka qaaraya yaayuur baa dadka qaaraya mukulaal bay yidhahdaan basho bay reer galbeedkaasay yidhahdaan soomaalida galbeedkaasay ku duqloodeen Ethiopia ku jirta basho yidhahdaan waayahay markaa ma SHS baad qoraysaa waxba imikaygu wixii kaa soo hor imanaysaa ku qaribaysaa markaas taa noqo kow waxaa la yidhi wareedhaha اسم إن لقد داعي حرفها السيدة لي لقد داعي برد وتامت حسبي بوصة بس
xusbi baa la baxayaa buuri hudhud buu bixiyey hudhud markaase waxay soo baxday hudhud ilaa dha yeesh hadday istaabtaan balaa dhacaysee qarnab way isku dhegayaan markiiba hudhud bay ka noqotay hudhud kolkaas waxaa la yidhi waan wixii de waxaa soo wali waxaan xasuustaa berigaa maan dhaleysanayn markii dabaa weynaaday ayaa raggii berigaa arrinkaa ku doodayey ay dib igu soo dhaceen aan idhi wallaahi nimankii caqli bay ku hadlayeen odayaal waaweyn baa waa la dhegeysan waaye kow waxaa kaloo maarayn u baahan waxaynu idhi shan shaqaloo gaaga weli waxaa ku hadlay lagu shan gaagaaba a e i u a ayaa la saway waxaa la barbar dhigay shan kale sidii jeelo wareeg kugu dhacay oo iyaguna xarfa ah ayaa barbar markaasaa lagu leey waa 10 xaraf baa lagu leeyahay taas ilaa shan laba kalbe sidoo kale tirinayo waa 10 ka mid ah beriga arrimaha waxaa soo jeediya looma baahna waar kuwa dhaadheer laga daayay oo eeg door markay ingiriisku qorayo door laba oo uu ka dhigaa isaga markuu adaa dooranaya markaad ka dhigaysatay waa laga yaabaa qoladii dhulbeeyay bala markay doona dheereeyaan xalafka hadii doonaan Finland baa sameeyay waa la dheereey karaa waa la gaabi karaa rag waxay soo jeediyeen waa laba xaraf weeye labadan eeye wax aad waxa loo dhaqmaya hal xaraf waxay soo baxday basal koonarka marka la sameeyo ee jariyada carruurtu ku ciyaarayso ayaa la yidhi waa ta meel la babadheeyo meelaha la babadheysa si kalmad lagu buuxiyo marka baashal dee shaxda la samaynayo markii ku jirto aado ma xaraf baad u qaadaysaa mise laba xaraf ilaa haddaad xaraf kaliya u qaadato waa inay god kaliya intay gasho aado soo ma hatee waa inay god kaliya gasho hadday laba xaraf tahayna laba god bay kala gelaysaa haddii labadaa loo qaatay labadii god markaa waa laba xaraf dee waa laba xaraf dee ila godkiiba xaraf baa gelayay yacni aada iyo oodu weli waa sheeko muran anigu caawa halka dubale waa lagu go'aaminayaa idibalihi laakiinse waa sheeko muran dee markaana muran ka taagnaa welina murankii ka taagaya war miyaynu u baahan nahay inaynu dhaadhilo shan intaad oo tiraahdo oo la tiraahdo miyaad u baahan tahay mise kaluunbaa markaad doonto aad labalaabaysaa markaad doonto aad kordhinaysaa intaad waxaa la qaataa ruudka ka gaabo baa la qaataa mise markaad doonto aad dheeraynayso kow maxaa la raacay taa sababta keentay miyaad ka warramaa keentay qoladii carabida markaa la raali geliyay waana garba waxay carabdu leeyihiin baxadhe amanuu ya laa oo dheer bay leeyihiin maganaysaa mad bay leeyihiin markaa waxaa la soo qaatay in mad lagu sameeyo xarafkii gaabnaa xarafkii oo carabi weeye madkalu aadanu waa mamduuda iyo uudanu waa madkii ee maha laatin markaa waxaa isku dhex jira madkii carabiga iyo waxaa isku dhex jira laatinkii ayaa la doonayaa in la iswaafajiyo markaase waxay soo baxdeen shaqalo dhaadheer iyo qaar gaagaban bay soo baxday qoladii laatinka ku shaqaynaysa waxay kuolayaan war waxaan xayaa ka keenteen hoostaad waxaad kuolaysaa waxoogaa yaroo carabiyaa ku jira waa mabduuda ee iska habsoo waxoogaa mabduuda baa ku waxaa kaloo ku jirta markaan kala hadlayo xarafkan higaadan aynu raacayno alfabetkii carabiga ahaa la raacayo orderkii la raacayo waxay keentay dictionaryadii mashkaad ka dhigtay waxaa lagu ku hayaa meeshaan joogo jaamacaddaan joogo intaan soo dictionary oo qaarna waxay raacayaan ilaa markii dambe siduu doonaa buu yeelay qaarna waxay raacayaan alfabetkii carabiga ahaa oo baataajaha bay ku bilaabayaan orderkiias qaarna waxay raacayaan alfabetkii laatinka ahaa ayay raacayaan labada dictionary buu jira markaasaa ninka iminka afka laatinka gaalka islaa af soomaaliga baranaya ee is yidhaahda kelmad ka baa dictionarygii soomaaliga ahaa ee la kulma kaa xuruufal hijaayiga la kulma waxa cadibta oo dhibaato ku noqota taado xuruufal hijaayiga xagga hore kaga jirta taada waa halka ugu horeysaba markaad buu dictionaryga baarayso halka ugu horeysaad ka baaraysaa
haddaad ka kale ka baadhaysana halka ugu dambaysaa tegaysaa tiida ayaa tegaysaa aakhirkaa tegaysaa markaasaa waxaanu aragnay gaaladii iyo confusion ka qaaday confusion waxaanu leeysaa tiyo xagga dambu tagay xagga hore kale waa xagga hore dib u soo celinaysaa waxay u baahan tahay in la dejiyo ilaynu dejino oo siina dadka wax la isla garanayo yani wartiida xagga hore inuu ku heshiinaa inay ahaato bis xagga dambe inuu ku heshiinaa inay ahaato wali iyadoo la isla meel dhigay baa dalkii laga burburay waxaan wixii dalkii ka soo gaaray inuu burburo dalkii burbay laga soo gaaray dictionary baa fadhiisan kari waayay dictionary uu fadhiisan kari waayay waxa fadhiisan kari waayay markaan ardayda wuxuu dhigayo ayaa qodobaan soo jeedinaya qodobkan waxaan ku bilaabaa macallimiinta qaar waxay ku leeysaa waayahay saddex mas'alo ayaan sheegayaa ta koowaad buu mid qoraya ABC buu mid qoraya mid wuxuu qorayaa bataja ayuu qoraya caruurtu waa ku confusing كمان وهذا وحيوم بسلاي بالغ يعني لقيت حرفيا لما لابي ويكون فيوز كرينيا عضل كان عن سوور بيني ويكون حرفيا ممدود كي ويكون فيوز كرينيا